السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شي محمد ويا صوماليا عاو waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobada ugu waaweyn oo qarankeennii Soomaaliya hortaagan inuu hana qaado, inuu dib u dhismo, inuu horay u socdo, in burburka iyo laga baxo dib u dhaca. qodobada ugu waaweyn oo hortaagan ayaan rabaa caawa inaan ka hadlo. qodobada ugu waaweyn waxaan ka soo horjeediyey oo ah qodobada aan ka hadli doono. 1. dastuur xaaraan ah oo quraankii iyo sunnadii lagu bedelay oo gaala soo qoratay. qodobka labaad waa 4 sano oo gaaladu ku sharciyeeyeen dantooda, ku jaangooyeen inay 4 sano markii la gaaro madaxweyne cusub la doorto oo asagoo barbarada shaqada ka tago si ay u harowsadaan oo uga faa'iideystaan intuu cusub yahay. maxaa ku xiga? lacag xaaraan ah oo la siiyo xildhibaanada 329 ah. maxaan ugu damariyey xildhibaano xaaraanta jecel oo lacagta xaaraanta way jecel yihiin inay qaataan. 4 sano oo dulmiga ah way jecel yihiin oo beesha lixaad shisheeye nimanka xalna fadhiya iyo dowladii soo dirsaday ayna dul saareen oo nuu gumaystaan oo dalkanagii inuu qaran noqdo hore u socday ay ku diidan yihiin. qodobaasna way jecel yihiin oo 4 sano ah in habba madaxweyne cusub la keeno. kuwan xildhibaanadu waa jecel yihiin ilaa lacag xaaraan ay qaateen, lacagta xaaraantana waa jecel yihiin. maxay kaloo jecel yihiin xildhibaanadan lacagta xaaraanta qaata oo 4 sano oo dulmiga jecel? dastuurka xaaraantana waa jecel yihiin. dastuurka xaaraanta oo 60kii ay qoreen Talyaanigu iyo reer galbeedku way jecel yihiin. kii 12 lagu soo qoray Nairobi oo gaaladu soo qorateena iyo reer galbeedkuna way jecel yihiin. jacaylka dastuurka gaaladu soo qoratay oo lagu bedelay kitaabkii quraanka iyo sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo 4 sano oo ayaga dan ugu jirto shisheeyaha. ogow cunaqabatayn tuubka ma qaadayaan. ogow lacagtii shilin Soomaaliga iyo deymaha lahaayeen oo ayagu cuneen oo beenta ahaa oo 5 bilyan ahaa waa dhamaata dhihi mahayaan. laakiin maxay leeyihiin madaxweyne 4 sano waa ka dhamaatay, meesha ha ka tago. marka dastuurka xaaraanta 4 sano gumaysiga ah, lacagtaas xaaraanta ah oo dollarka ah oo ay qaadanayaan xildhibaanada xaaraanta jecel. qodobadaas ugu waaweyn waxa dalku qaran la noqon la yahay 32 sano la burbursan yahay la soo noqon la yahay. intaas waa ciwaanka. maxaa hadalkeena saldhigu ah? ayadan quraanka qaala tacaala واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ilaah ayadan wuxuu ku leeyahay waxaad ka baqdaan fidno, balaayo iyo baas. balaayo iyo baaskaas iyo fidnadaas oon ku dhacayni kuwii sameeyey oo adinka idinka mid ahaa, tiradii yarayd oo idinka mid ah oo dulmigaas falay aan ku dhacayn keligood, laakiin kulligiin idinku wada dhacaysa. ka dhowrsada oo iska celiya oo intay dhicin kuwa samaynaya gacmaha ka qabta oo iska difaaca. واعلموا أن الله شديد العقاب. وحدنا وقات إله عقابتيسو مركو إذن قبطوا ويدرانتا.
waayahay ayad tafsiirkeedii wakaas ayada kalena waa idinkugu sii dari doonaa markii warku ii soo gaaro waxaan ku hormaraynaa 15 baa la doortay xasan sheekh maxamuud maanta idin la hadlayana waa 19 May 15 May baa la doortay 2022 xasan maxamuud oo doorteen 329 xildhibaan idaacadaha iyo facebookyada youtube-yadu maxay sheegayaan iyo idaacadaha Soomaalidu ay leeyihiin waxyaalaha inay sheegayaan aniga run iyo been waxay yihiin ma garanayo mana xaqiijin kara laakiin inaan maqlay un baa idin sheegin adunkuna waad maqasheen saan u maqlay oo aanu Facebook YouTube iyo baraha bulshada iyo raadiyaasha gaarka loo leeyahay oo YouTube-ka la soo dhigo baan ka arkay anigu waxa la leeyahay chat-kii waa la fasaxay oo meel wadanka meela kamid ka soo degay waa kow waa chat-kii dollarka lagu bedelan jiray oo ilaahay diinta islaamku ay xaram ka dhigeen oo Kenya dollarka ku qaadan jirtay caleenta xaraanta noo keenay jirtay oo dawladii farmaajo la joojiyay 15 ilaa 19 kan ayay meelo badan oo dalka soo degeen baa la sheegaya waa kow Mike Bryden jaajuuskii calus u shaqaystaha oo Nairobi fadhiyay oo la lahaa Ingiriiska Canada waxa soo haysta dhalashadooda iyo baasaboorada xamar buu ka degay baa la sheegaya oo airportka nisadii joogtay markuu yimid dhisaan baa lagu sameeyo hubkii baa laga dhigay ayadana waa la sheegaya waa ninkii maxkamadda ku xukuntay Soomaaliya 5 sano oo jaajuuska dalka Soomaaliya jaajuusiyay markuu helo jaajuuska wararkaasna lacag ka sameeyo oo adduunyada ka gata warka lagu leeyahay Soomaaliya lagu jaajuusaya horena uu sheegay tuur yare 18 sano gabar Jarmal oo dalka jaajuusaysay waxa lacagta looga siisanaya waa wixii dalkan lagu dhibaateyn lahaa informationki dalka lagu dhibaateyn lahaa weey waa hagardaamada diinta islaamka waa hagardaamada dalka waa hagardaamada sharci dadka shacabka oo Soomaaliyeed dadweynaha wixii lagu dhibaateyn lahaa ayaa laga gudbinaya informationka ha u malayn sheeka barle iyo quraafaad ha u malayn dawlad iyo shirkado qofna dollar bilaash ku siin mahayaan haddii xog muhiim oo la taaban karo oo ka faa'iidayaan uusan keenin intaas uu ka shaqaysta calus shaqaysaas la sheegay haddana xamar buu joogaa la sheegay maxaa ku xiga waxa la sheegayaa balcad in laga soo qaaday ciidamo joogay oo Burundi ahaa oo xamar la keenay meelahay joogayna al-shabaab soo buuxiyeen taasna waa la sheegayaa maxaa kaloo la sheegayaa 9.6 milyankii la qabtay 2018 oo imaaraadka wadanka ku soo galiyeen inay mataqaano dalka ku khalkhaliyaan oo ku dhibaateeyaan bangigii baa lagala baxay oo waxa la baxay Maxamed Soo Rooblo iyo 30 milyan haystayo wixii bangi shaqeynayay oo fikir ku raacsanaa qaarna waxay ku darayaan Xasan Sheekh Maxamuud baa feermeeyay oo ogolaaday oo Rooblo ka feermaystay oo yaada madaxweyne ay feermay asna waa uu feermeeyay ayaa la sheegayaa marka Xasan Sheekh Maxamuud oo feermada iska leh Rooblo feermada dalbaday 9.6 milyan qaar qaadanaya 30 milyan oo asaguna sidiisaba lacagaha xaraanta iyo mataqaana waxyaalaha xaraanta uu ka ganacsada oo lacagta xaraantana aad u jecel ganacsiga xaraantana aad u jecel ninkaasna meesha waa ku jira iyo kuwa mid ah bangiga shaqaalka baa la sheegay oo arinta ayuuna fuudeeyay si xoogaa loo siiyay mid ah commission warkaasna idaacadu waa sheegayaan inahaas iyo ina ka sii badan oo hadda anugu ama aan maqlin adinku maqasheen ama adinkii maqlay hadii dhageysanay adina maqlina meela kale kulay la geliyay oo warar oo soo socdo saacado iyo maalmo iyo asbuucid aad maqlay doontaan oo diinta iyo dalka iyo dadka hagardaamo ku ah Soomaaliyeed ayaa bilowday marka Xasan Sheekh Maxamuud bal xagga noo dhig farmaaji ku horeeyay xilku wareejinay xagga noo dhig nimanka labada bal xagga noo dhig madaxweynaha hadda magacaabaya kii hore waxaan u imaanaynaa ka hadlaynaa nimankan xildhibaanada ah oo doortay Xasan Sheekh Maxamuud 214 ku doortay ayaa waxaan hadda la sheegayo iyo wax alla wixii dalku haduu god ku dhaco oo wadankan u burburo iyaga geliyay ileen iyaga shacabkii wakiilka ahaa markay shacabka wakiilka ahaayeen
qofkay doortaan ayagaa madaxweyne ka dhigay hadda meeshay xasan sheekh doortaan hadday qof kale dooran lahaayeen oon cusub weligii la arkin ama ay dooran lahaayeen shariifkii ka horreeyey asaga xasan sheekh maxamuuda ama farmaajiye asaga xil ku bedelay oo hadda xilka hayay ama odaygii kulli ka sii horreeyey oo cabdilqaasin ah oo masar ku nool ama baramisradii dalka soo maray maxamed cabdi yuusuf ninkii la yiraahdo cali maxamed geedi saacid shirdoon ninkii la oran jiray xiirna basayuulka cabdiweli cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmarke ninkii kale muxuu ahaa kii aan ka tegey kee ahaa mid baa ii dhuudhuumanaya inuu ii gooyo rabee baraymisarkaas waa kee waa kii reer dalal oo dhowrka bilood hayay muxuu ahaa maxaa la oran jiray ina cilmi goonjax magaciisa ma hele ina cilmi goonjaxun baan u aqaanaay kaasna ku dar yaan kaloo ka tegey xasan cali khayrihii 7 minute xukunka loogu qaaday kii hadda u dambeeyey ilaahay naguma soo celiyo kaas prime ministerna uma aqaan in la magacaabana markii horeba dambe iska mar dambe raggaas hore xasan khayr ugu dambeeyo inay doortaan kuwii hadda doorashadan hadda galay ayagaa marka qofkay doortaan baa dalkan madaxweyne ka noqon lahaa iyagaa marka waxay doorteen xasan sheekh maxamuud oo dhaqankiisa ay yaqaaneen oo farmaajo ka hor ninkii waddanka madaxweyne ka ahaa dhaqankiisuna uu ahaa dhaqan xun oo aad u liito dulli ah oo musuq maasuq ah oo corruption ah oo dumul jadiid ah oo TPLF ah oo kenyaati ah oo imaaraat ah oon haba yaraatee wax maamul lagu sheegi karin ayuu ahaa xasan maxamuud 2012 ninkii noocaasa yaqaaneen markay doorteen macnaha masiirka dalka haddii wax ka qaldamaan sida hadda qodobada hadda idaacadu sheegayaan oo idin tiriyo kale waxaa mas'uul ka ah iyaga xasan sheekhna mas'uul ka ma ahan farmaajona mas'uul ka ma ahan maxamed xuseen roblana mas'uul ka ma ahan xasan cali khayrna mas'uul ka ma ahan waxaa mas'uul ka ah dadka shacabkii codkoodii inta loo dhiibay doolarka xaaraantaa siistay 4 sano oo gumaysiga raba dastuurka gaalada ay qoreen reer galbeedka na raba intaasba xaaraanta jecel nimankaas ayaa maadaama xaaraan ay ka shaqeeyaan oo xaaraanta jecel yihiin iyagaa marka dalkaas godka ku riday waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed sidii loo joojin lahaa xildhibaano waddanka lacag xaaraan siisanaya oo gadanaya baacsanaya 4 sano oo gumaysi ah oo cadow noo samaysteen dastuur xaaraan oo kitaabka quraanka ay nabi ka soo horjeeday sallallahu alayhi wa sallam oo gaala reer galbeeda noo keensadeen si kitaabka quraanka ay sunnada meesha looga saaro intaasa dalkiini hortaagan intaasa diintiini hortaagan intaasa shacabkiini lagu gumaysanaya oo lagu gumaadaya oo lagu ihaanaysanaya oo lagu xaqiraya oo lagu dulminaya arrintaas hal rabo marka inaad iska qabataan oo ka hortagtaan oo meel iska saartaan oo iska difaacdaan waa hadaad diinta islaamku ay qalbigiina ku weyn tahay oo agtiina qiimo ka leedahay waa haddii dalkiinu qalbigiina ku weyn yahay agtiina qiimo ka leeyahay waa haddii adinka naftiinii noloshiinii sharaftiinii iyo xayaatadiinu ay qiimo agtiina ka leedahay oo qalbigiina ku weyn tahay sidaas sameeya oo waxaad keentaan qaacido iyo caqli iyo shaqo waxaad qabataan loo joojiyo in masiirka ummadda loo dhiibo dhowr xildhibaan oo 300 oo lacag xaaraana ku gadanaya diintii iyo dalkii iyo dadkiiba adinku wax rabtaan keena doorasho cod iyo qofa keena ama barnaamij kale oo kala keena wax un arrintaas ka fiican oo aan ka liidan keena shacabka Soomaaliyeed meel adal iyo dad kaga nooshiinba kuwa jigjiga jooga kuwa gaarisa jooga kuwa jabuuti jooga kuwan hargeysa jooga kuwa xamar jooga shantiina la sheegi jiray inta isku tagtaan dalkan qodobadaas baa aniga ii muuqday kuwa ka badan oo adinku ogtiin oo aan aqoonin ama aniguna hadda aan hilmaansanahay qof walba miiska soo saaro wixii aad ogtahay oo dalkan hortaagan oo dhibaato weyn ah inta miiska saaratid haddana waxaad la timaadaa ood ka shaqaysaa intii tabartaadu dhan tahay af iyo adin iyo mataqaana qalbi iyo dhaqaale iyo wax walbaba iyo cilmiba sidii dhibaatadaas looga bixi lahaa
إلا بني آدم بانا حيوان منهم وحلا عصي أو قبورك كتير من ولي ونول نهاي waxaan ugu sameynay wadan la mid ah oo bani aadam oo waxba la dheerayn oo naga cilmi badnayn oo naga aqli badnayn laakiin noo helay dollar iyo kuwa anaga ah dollarka xaraanta jecel oo xalaasha ka jecel oo xaqa ka jecel oo diinta ka jecel oo dadka ka jecel oo dalka ka jecel lacagta un xaraanta bas wax walba ka jecel yihiin aakhiroodii ka jecel yihiin ilaahoodii ka jecel yihiin rasuulkoodii ka jecel yihiin waayahay su'aal baa kugu soo dhacday Soomaa Cabdirashiid sidee u difaacnaa aayadan qabsan marka af Soomaaliga in jawjawda on kale mid caawda iyo dhuusamar inta iska diisid aayadan qabso quraanka qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آية التفسير كذو حوي كوي حق الرميو مقلا أو يالا وركودا أو دقيستا وحا إذن ليهين أو راعة أو قلبي قشدا أو برتا أو كل قما وحا ربي رسول إذن ليهين أو إذن كوي يريان إذا دعاكم لما يحييكم مركي إذن كوي يران وح إذن نولينيا ومحيطا وح إذن نولينيا وحق وقرآن وسنة النبي وصحابة النبي وقرآن كي سنة سوغارسي راد كودي إن لغو دعوه إن أيها وحي سمين جرين سي نولان جرين سي إن لون نولادو وحي راعي جرين وقود دقم جرين إن لغو دقمه وحي ديدي جرين وكعرر جرين وكفوغان جرين والله فوض وبقى جرين إلهي إنو كو عذابه آخر أدون كان كو عنقابه وغن عراضه ويكديران جرين إن لغا ديراضه وكا إلهي قفك إيا قلبي سنة وكال نحمره انت عاد عافماد قبطو انت عاد جانس هايستو عاد وحكو براتو كل عباديستو انت عاد حق اوهو سمي كرتو او نفتك وجرتو حوق إيا عافماد الله دهي انتي قلبي إلهي ودعك الأقدين لها وأضو بلاي بس كل حجر عاد دمان لهاyd dadaal oo xaqa ku dadaal saacada dhiman doonta lama yaqaan adoo wadada toosnayd oo xaqa ku taagan nafta ka baxay آخرنا واللي نسوق كل من ومركز آخرته تان عيد نقول ميسانه قفل بإلهي بهور استاجن ولا ودين أنا أكو أبو رتيسومه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ما كوسو دري قرآن ما كوسو دشي وحاسنا فل وحاسنا هفلين بانكو يري كتاب كاغي واكنا ملايتو كاسو قرطي أنونا أدي ملايتو وإذن ورديني وإذن أركهي وإذن مقلهي وإذن لسعودي هذا خير سميستنا واكنا خيركي هذا شر سميستنا شركي واكنا هذا شر سميستي نار جهنم وطا اسك حاضره هذا خير سميستي جنة فردوس وطا اسك حاضره تاسا كسوغي سمرك xildhibaanadii dib noogu celi aayadan quraankaana qabso marka laftigeeda oo xildhibaanadii ayay ku socotaa lacagta xaaraanta iyo 4 sano gumaysiga iyo dastuurka xaaraanta intaas diintii iyo dalkii iyo dadkii ku bedeshay qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. آيادا تفسير كذا وحوي ربي يا رسولك خيامنين وحادي إنه كله خيامين وحي اللي يدنكو آمنين. ربي يا رسول محاي كو ديبين كتاب قرآن يسنو بيكو ديبين. قرآن كان خيامين سنة النبي خيامين وحي كله أمانة وذيك دحدين إذا دحمره خيامين محاي نقو سمايان شعب كي سوماليد وصدن من أنكو قياسو أيا دورتي masiirkoodii iyo mustaqbalkii dalkooda in horey loo wado oo burburka laga soo kabo oo wax khayr leh iyo meel wanaagsan loo kaxeeyo ayaa loo doortay. markaasay maxay sameeyeen lacag xaaraan oo dollar ku bedesheen 4 sano gumaysina waa jeclaadeen dastuur xaaraan ana waa jeclaadeen. intaas war mata saddex aayado quraanna ma haysa. waayahay waxay intaa jawaab u tahay see laysaga celiyaa see laysaga celiyaa markaan marayso kuma oran soo idima oran. halkaas waxay ku haboontay in su'aal laga dhigo sidee laysaga celiyaa dhibaatooyinkaas qodobadaas waaweyn dastuurka xaaraanta 4 sano gumaysiga iyo lacagta xaaraanta la qaadanaya si la isaga celiyaa. jawaabtii ayadoo quraan aad heshay haddii shacabka Soomaaliyeed ay Rabbi iyo Rasuul warkooda maqlaan qodobadaas iyo kuwa kale oo aan aqoonin oo ka fara badan ama ka waaweyn ama la'eg ama ka yar intaba Ilaahay waa burburinaya waa noo hor qaadahaya. sidaas marka ay dan noogu jirtaa inaan Rabbi iyo Rasuul maqalno warkoodii aan raacno amarkoodii aan qaadano waxayna fareenna aan farnoono wixii ay naga reebeen aan ka fogaano ka harno. guushu halkaasay ku jirtaa. meel kale qofkii ka raadiya waa undaalahaya waa oomahaya waa haraadahaya ha ka yaabin meel kale u jirta male halkaasay jirtaa. aayaddii u dambeysay maxaa ku xiga oo laga yaabo lacagta xaaraanta inay u qaateen qoladan xildhibaanada oon hadda ka hadlayo. qaala tacaala واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إلهي وحير وحاد أوغاتان آية تفسير كذو حوي وحاد أوغاتان عرورتي نيو مالكي إنه في النوي بلاي باس قرط اللي دين قليوي ولا يمكن تحامية اللي أدون كان بيتحام بالو جوال إناد إسكا إلاليسو ووحي وربي كارهيبي maalka iyo caruurtu intay kula galaan aad iska daba gasho iyo inaad ka harto oo wixii Rabbi iyo Rasuul ay ku yiraahdeen waxaasa maalkaaga iyo caruurtaadan ugu jirta oo xalaal ah inaad ku dhaqdo oo ku kuriso taasaa dan kugu jirta. nimankan marka waxay la noqotay hadday lacag xaaraan cunin inaan caruurtoodu noolaanayn ayaguna noolaanaynin ayna maalna helayn iyo ganacsi iyo wax khayr leh. marka si caruurtu kugu noolaato adigu u noolaatid ganacsi u samaysatid هذا وحال الشيء رمي بين هذا واحد جران مايا فيسبوك سمعوا شيء 200 أو كن أي حس أوبلان قاضي متكسو كمله وحي دورته 200 يافرت ممكن شيء تون كمل لما أنتوا مسقار كمله لعيت موسين ودي بلا شيء دهنا هوتيلي دقنا سررت يكو ينبالي barkintii iyo go'ayba intay madax saarteen bay dadkii ka dhuumanayaan bale lacagtiina 200 oo kun lama sin oo xaraan tahay boolkiina waa laga qaatay warqadii meelay aadi karaan iyo u dacwoon karaan male. marka adu awalba xaraan yir waa kugu fooday haddana xaraanta in lagu diido waa laba jab weyn. xaqii rabbina dambi baa ku yaala xaqii adduunkana
cayrtii iyo fakriga aad ka cararaysay oo diintaadii iyo dalkaagii iyo dadkii la gaatay ayaa haddana kuu goysay waa kaas laakiin warkaa anugu run iyo been waxay maqaan facebookyada soomaalida ka maqlay laakiin soomaaliya waxyaalaha ka dhacaya qofkii noolaaba baa la dilahaya si lacag loo helo marka qof nool qof dilahaya suu lacag u helo lacagtan laaluuska oo xaaraanta qaado inuusan u daahin adbu waa kuu caddahay soomaa waa yahay haddii shacabkan anigu aan ku qiyaaso inay 30 milyan yihiin dalkiina uu burburay 92 sano hadda ay nagu marayso niman liira reer galbeed oo dalka burburiyaba sanad kasta ay qorshe cusub iyo dad cusub noo keensadaan oo iyaga u shaqeeya wixii iyagu rabaana u meel mariya wixii shacabka Soomaalida ay rabaana diida sidii 25 Abriil 2021 oo baarlamaanku isku raacay in doorasho qof iyo cod la galo yaa diiday 25 lahaa waxaan ahayd musharaxiin madaxweyne oo waliba hawiyaa kulligood 99% daaroodka iyo dirta iyo lafaha kale qof laba ay ahaayeen dhammaan 29kaas waa kuwa u bixiyay criminal gangiska oo ku jiray hotel Jasiira kuwaasaa diiday oo u yeertay jabhadii wixii ka soo haray UAC oo degan jawhar inta xamar u dhaxaysa ciidamadiina janamadii waa saga xashi maxamuud ka hadal la doortay kii u yeeriyo lahaa adinka hawiyaha ka soo baxa ciidamada annaga hawiyana soo raaca halka markay mareysay 30 milyan ayaa waxay doorteen 329 kuwaas waxay ogolaadeen oo baarlamaanka la dhaho oo ka wakiila shacabka in dalka la galo qof iyo cod in la galo 25 ama konton ba ka dhig wada hawiye ama kontonka Soomaa 10 Soomaali ka dhig 40 kale hawiye ka dhig 40 hawiye iyo 10 Soomaali kale oo la isku daray 4.5 ki ka wada kooban kulligood konton kaasa 30 milyan waxay rabeen diiday konton kaasa 329 ki wixii ay rabeen oo fermayeen oo shacabka ay wakiil uga ahayn oo baarlamaanka ahaa ayaa diiday markaas waxaa la garay doorasho dadban waxa ka soo baxay haddana 329 lacag xaraana qaadanaysa ayagiiba xashi maxamuud doortay 15 16 17 18 19 oo hadda hadlayaan waxaa la sheegayaa sharki inuu soo farurmay oo dalka sharki intii dawladii farmaajirta wixii meelihii sharka ah oo la xiray oo la awday oo la sharay oo la jufay in la soo faruuray faruurka marka shacabka hadda inta badan waxay caayil markan dhigaysa xashi maxamuud oo shacabo Soomaaliyeed oo xashi maxamuud maxaa ka rabtaan nimankii doortay oo xildhibaanadaha ayaa dambiga iska leh waa aniga sida arko asaga wuxuu qof ahaan geysto ama fermadiisa ama rabitaankiisa qalbiga ama amarku af ka bixiyo asaga ilaahay la hortagay waa gaarkiisa laakiin waxa ka weyn nimankii keenay ninkan oo doortay haddii shambri wadankii intaasoo balaya hadda aan sheegay adunkuna ka dhagaysateen lagu furay asaguna sidii aan hore uga hadlay ku noqon doono la aqoonin xashi maxamuud cusub ama ninkaan naqanay ama kii aan naqano laba jibaaran sidii hore aan u sharaxay weli waqtiga anigu aan kala cadaysan lahaa sanad iyo horta hal la gaaro iyo sanad iyo barya meelaha 2 sano iyo baa u sugin waa u buradayn waan u xisaabin oo qorin wixii dalka ka dhaca intaas markaasaan ku soo jeeranaya markay ii cadaato inuusan kana khayr ka soo socon hadduu wadada xaqa ku dhacana ayadana waan u sugin sanad iyo bar baan u sugin markaasaan xaqa ku taageerin nimanka aan hadda marka ninka igama dhagaan ninka xasaas qorshahaasaan u dirsaday ninka xashi maxamuud hadda wax iga dhiganta aniga iyo shacabka Soomaaliyeed nimankaas ilaan anaga shacabka ayaga naga wakiila magacana ku hadlahay ayaga masiirka nagu dhiibanay iyagina min 200 kun bay qaateen baa la sheegay oo hadda lagu booday hadayba runtahay way usabeen la alifay ahay oo Facebook la soo fariistay
nimankaa marka iyaga ah sidaan isaga hor wareejin lahayn iyo barnaamijkan 4 sano saan isaga hor wareejin lahayn iyo dastuurkan xaaraanta oo gaaladu soo qoratay oo kitaabkii quraanka ay lagu bedelay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam sahih bukhari iyo muslim saan u tuur lahayn u gubi lahayn meesha looga saari lahaa kitaabka quraanka iyo bukhari iyo mutaqa muslim loo keen lahaa shacabka Soomaaliyeed adinka shaqadaas idin sugaysa waa idin taala cid idin qabanaysana ma leh cid idin qabanaysa ma leh shaqadaas qala ta'ala ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم إلهي آيادا وكل يقوم كان اسبدلين حالته بدلين أنا مبدلين هذا حال خير وناق رب هلك يكون عدان إلهي كبدلي مايو هذا أنت إلهي كل حدان أو كل عاصيان ربي الرسول أو قالوبان أو منافقوبان أو ظالمين نقدر يقول مسلم أو حقي كل حدانا أنت قالت كي كتيران لجسوا علم إلا أسقرتان أو يقصوا نقدان مهان أنا ومركوا وإن عن قالت كان أن كتيرنو أو ربي الرسول كجتيرنو أو دينته كجتيرنو أو ضل كجتيرنو أو شعب كالصومالي بحديث استلم اللي يسجتيرو إن لا توبة كانوا لا جسوا نقضه ربي الله صار نقض وضي رسولك يا صحاب القدع عول لمن كان صدح بقول يلا باتي سقال كان ليش كعليو لعقت حارانته والمستقبل كو قدنيان ليش كعليو أفرت السنة أو النص سميتين لمن كان حلف فرديو وبيش لحد لو بحي والشيها وعدوها إن لديدو وسديسا نكو فرديو إلا وطن كان وطن بربرسنوي ما أهم وطن إسكا عاديو مركو نكو كتاقا ماشا وحي نوضا يالان information كي iyo document كي ديار iyo shaqadii qofkii tii shal la qabtay tii maanta uu qaban lahaa kaliya ka dhiman tahay ma waa wadan isku ka kabaya gabigiisu xabad meel la keenay maxay dhahan nimanka baydhabo degan jilli jabay nimba jilkiis wadan asagoo dhanba dhala burburtay noqday oo la rabo in isku ka kabo 4 sano qofku waa uu la waalaya maahan waa lagu dambaabayaa waxba muu qaban karo qofku marka hal laga tashado shacabo hal laga tashado nimankaas 309 kana aad ha loo fiiriyo halala socdo hadba tilaabada ay qaadaan iyo waxay feermayaan halala socdo anu farmaajo iyo nabad iyo nolol iyo wixii la talin jiray haddaan markaas ka mid ahaan lahaa waxaan ku talin lahaa kulay leegama yeelan laakiin waxaan ku talin lahaa 25 Abriil in horay loo socdo ama USC haraageeda ha qayliyeen ama 25 hawiye u badan ha qayliyeen ama kii gaabnaayo Mareykanka telefoon ha soo diro Yomoto oo yiraahdo xamar soo galo ma taqaana xabad turtuura anu ciidankan ku fasixi lahaa midaan dilo iyo midaan xiran ka dhigi lahaa sidaasaan ku talin lahaa sababtu siyaas markay dhacdo waxa dhici lahaa in doorasho qof iyo cod la galo deedna marka ama farmaajo soo noqon lahaa ama qof kale cusub la dooran lahaa iyadoo cidna la isku eedeeno qof walba asagu gacantiisa eersanay dalka Yomoto miya iska leh masheelatan hawiyaha oo ma taqaana criminal gangs oo xal laga xukumaa iska leh ma toban kale oo Soomaalida kalaaba iska leh maxay tahay 329 baa waxay feermayeen in qof iyo cod la gaaro markaas 25 hor istaagtay iyo Yomoto oo kaligiisa markaas madaxweynihii dhamaa dalka wuxuu yiri waan tanaasulay markaas ay kuwii la talinayay waxay kula tiri inuu tanaasulo markaas nabad iyo nolol dhan waxay ku raaceen inay sax tahay iyagu waxay u arkahayeen maadaama waddanku dagaal ka soo noqday la burburay la kala dhintay waxay ka cararayeen farmaajiyo qolada nabad iyo nolol ama adinka idin ersataa inta hadda civil war dib loogu noqdo la kala burburo la dhahaa barigaas farmaajo madaxweynaha dalku mar labaad la kala tagay meesha ay arrintu maanta Soomaaliya marayso qof ku fakaraya waxaas lagu dhihi doonaa oo eedka carara
dalkan meeshuu maraya ma dhaafsiin karo waxaa la rabaa qof kaliya adag oo calo adago meesha dalkan inuu bartuu marayo cadow gacantiis ku jira inta laga bixiyo in hore loo dhaqaajiyo wixii dhimanayana ha dhinteen wixii dhaawacmaya ha dhaawacmeen wixii la xiraya ha la xiree horey nin u dhaqaajiyo xaniye iyo calo le baa loo baahan yahay 30 milyan iyo 329 ayaa 25 iyo mooto oo Amerikaan ah oo safiir kaliya ah safiir ayaa diiday in Soomaaliya qof iyo cod doorasho la galo madaxweynihii dhamaa oo dalku ay doorteenna wuxuu yiri waan tanaasulay wasiiradiisii iyo barnaamijkiisiina waa tanaasulnay xisbigiisii nabad iyo nolol dal iyo dawladba waan tanaasulnay meelahaas oo kale waxaa loo baahan yahay go'aan adag oo la socodsiiyo anu hadda waxaan arkaa haddii xataa lagu kala tago oo ilaahay u qadaray in lagu kala tago kala taga waxaa keenay 25 USC-da oo hawiyaha iyo 10kii kale oo ku raacay oo dir iyo daarood iyo raac iyo ahaa digli mirafle iyo reer xamar banaadiriga intaasay eersan lahayd farmaajiye nabad iyo nolol iyo rooble iyo xildhibaano iyo ma eersateen iyo wasiirro midna wixii burburka keenay oo jaasuuska u noqday iyo mooto oo isku sheegay musharaxiin madaxweyne ayay eersan lahayd haddii hadda ka soo qaad 4 sano soo socota ay ku noqoto meeshii farmaajo looga dhiibay 2018 Febraayo oo xasab dalka burburiyo iyo xildhibaanadiisan iyo wasiiradiisan iyo kuwa hadda soo magacaabi doono ma waxaa la oran karaa farmaajo iyo nabad iyo nolol iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadii maxay sagaalaad miyaha tobnaad arrintaas qayb kuma leh oo waxay ka yihiin bari bay ka yihiin miyaa la oran karaa lama oran kara qayb bay ku leeyihiin baa la dhihi karaa sababtu iyaga arrintaa ogolaaday oo tanaasulka keenay iyagii shacabku mas'uulka ka dhigtay ayaa tanaasulka keenay tanaasulkiibaa wuxuu keenay doorasho dadban baa waxay keentay xildhibaano 329 oo lacag lowsha qaatay oo xasan sheekh doortay asaguna wadankii meeshiisii burburkiiba ku celiyey arrintaa marka aniga wuxuu igu fikira xasan sheekh kaliya saari mayne koo waxaan saaraynaa xildhibaanadan hadda cusub laba waxaan saaraynaa xasan sheekh maxamuud saddexna waxaan saaraynaa farmaajo iyo wixii uu ahaa wasiirro iyo maxamed xuseen rooblo barnaamijka u ahaa iyo wixii kula taliyey oo asaga la taliya farmaajaadsiisaba anu saasaan u arkaa inay tahay cadaalad saasaan u arkaa inay tahay run saasaan u arkaa inay tahay caqli saasaan u arkaa inay tahay analysis marka shayga laga hadlayo inta gees oo laga istaagi karo wey hadduu burburo dalku oo saa ku burburo yaa gardaran shacabkii 30 milyan wey 329 buu doortay niman madaxweyne u tartamayo oo musharaxiin ah oo wax alla wax jagay dalka u hayaan la arag iyo shacabka Soomaaliya wax mas'uul weyn ayuu hungurigoodii calooshooda jagal la raadinaya ayaa masiirka ummadda hor istaagaya oo dhahaya 329 baarlamaanku wuxuu feermayo oo doorasho qof iyo cod in 30 milyan galaan waan diidnay annagoo 25 ama annagoo 50 ah oo 40 kaliya isku hal qabiil tahay hal jifo tobanna ay tahay 4 qabiil oo kale oo 0.5 lagu doortay marka ma waxaan had aqbalnaa annagoo garkina cadaaday oo waayeela baan waxaan yeelnaa waxaa saxa in loo tanaasulo oo dal dhan oo 30 milyan u tanaasulaan oo 329 qof u tanaasulaan oo xildhibaan ah oo madaxweyne dal iyo barnaamijka dal iyo wasiirro u tanaasulaan 50 qof oo xalan laga xukumo oo iyo mooto inuu xukumo loo yahay oo soo wacayo oo hal safiira oo Mareykanka yimid masaasan ma taqaanaa aan dhahnaa sax bay ahayd ma dhihi karno sax ma ahayne khalad bay ahayd in wadanka hore loo socodsiiyo laga hor wareejiyo 25kan ama 50kan murashaxiin madaxweyne ahayd in laga hor wareejiyo sidaasay sax ku ahayd hadda waxaa afduubtay dalkii dhammaa oo 30 milyan ah iyo 329kii waxaa afduubatay 50 qof ugu badnaan ama 25 qof oo isku magacaabay inay madaxweyne rabaan oo u sharaxan yihiin madaxweyne inay noqdaan iyaga marka wixii wadankan 4 sano burbur ka gaara waxaa ka wakiila
shan iyo labaatankaas mucaaradka isku sheegay murashaxiinta madaxweyne isku magacaabay hotel jasiire ku jiray kontonkoodana ama 29kooda haddaad konton ka dhigtana 40 waa hawiye u s fikirkii wax aaminsan wey haddaad 25 ka dhigtana 20kuna waa hawiye oo u s fikirkiis ku shaqaynaya jabhaddii u s iska soo hormariyey wixii qabiilkooda hawiye ay ka helaana keensaday qoryo u dhiibtay shanta kalena waa soomaalidii kale waa dir waa daarood waa digil iyo mirifle waa reer xamar banaadiri marka looma kala maqna annagii oo dhan shantanadii lafood waa ku wada jirnaa haba lagu kala badnaado hawiye u s ku badnaadeen layskuma eedi kara marka hawiye keliyana lama saari karo majoritigay ahaayeen laakiin waa lagu wada jiraa daarood baa ku jiray axmedoo baa ku jiray siciidani baa ku jiray sdf baa ku jirtay aran jam baa ku jirtay snm baa ku jirtay maxamuud sayid adano mareexaanaha ku jiray gacmo dheero luga dheero diraha ku jiray darwish oo majeerteenaha ku jiray mid jananahoo ree axmedoo mareexaanaha ku jiray oo kismaayo joogo la yidhaahdo dhuumaal looma kala maqna mareexaankaba ugu hormara darabto meesha looma kala maqna waa lagu dhan yahay shantii lafood waa ku dhan yihiin marka hadday ceel ku dhacdo hadda 4 sano oo sira laga soo bilaabo haddana waxaa ku riday iyadoo isku dhan soomaali oo mid ka maqnay ama u s iyo hawiye majority ahaado ama reer xamar banaadirgu minority ahaado waxba minority majority haw kala saarin mar hadday ceel ku dhacdo way ku dhacdo waa la wada leeyahay 30 milyanna waa daawanayeen 929 markii horena waa daawanayeen 25 abriil 2021 haddana waaba nimanka lacagta siistay oo godka ku riday xildhibaanadu farmaajo iyo wixii la talinayay iyo baramisarkiisii maxamed xuseen rooble iyo wasiiradiisii kuwaasna ka dabage iyo eraygooda hawaan tanaasulay kuwaasuna qayb bay kulli dalka wuxuu ku dhaco ayagana waa lagu darahayaa ciddii ka reebaysaa ka reebta laakiin aan waa ku darahayaa haddaan ahay cabdirashiid cali maxamed maxay u kiin haray hal aayado quraan qaala tacaala وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم شعبك صوماليا مسلم بان أحي ربي رسول وركو ذا ميليو حياة طيبة أو وناسان بان أدون إنا كنو لا ذربا آخرا إنا جنات فردوسا قلان ربا ليسكو مهلي كارو اسكو ميل مقلي كاران آدي أدبو ماسين شعبك الصوماليات عاو هالكاسي نوشو ويسا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته